Bismillahirrahmanirrahiim. Maanta waxaynu ka hadli doonaa infekshinka ku dhaco kaadi mareenka. Haddaba caabuqa kaadi mareenka ee loo yaqaano urinary tract infection UTI waa cudur kaadi haysta ama kelyaha asiibo. Maxaa keena caabuqan? Caabuqan dareenka ah ama caabuqan kaadi mareenka waxaa laga yaabaa inay keento jeermis ka yimaada kaadi ku harta kaadi haysta marka aad kaadiso kadib. Xannibaad kelida ka dhex jirto ama dhagax kelida gala. Lur ka yimaada suun isku dhujis nigis layloon ah ama galmo. Sidoo kale waxaa sababo nadaafad darro, tubo la isgeliyo si ay kaadidaadu u soo saarto saxaro gaartay cawradaada. Waa maxay calaamadaha lagu garto gubasho ama xanuun marka aad kaadinayso? Qarqaryo leh dhaxan ama qandho leh dhaxan iyo qarqaryo. Kaadi badnaan si lama filaan ah qofka u qabato. Qofka oo dareema kaadi dhiig. Xanuun dhabarka qaybta hoose ah. Danqasho bisiqleyda ah. Daal dareemid ama jiirasho. Xanuunkan sidee loo baaraa? Dhakhtarkaagu waxa uu kuu diri doonaa baaris kaadi kadib. Waxaa la ogaan karaa in infekshinka ku hayo iyo heerka uu gaarsiisan yahay. Marmarka qaar waxaa dhici karta in dhakhtarkaagu kuu diro baaris kaadi si loo ogaado infekshinka bakteeriyada keenay iyo daawada wax ka tari karto. Sidee loo daaweeyaa caabuqan? Dhakhtarkaagu u sheeg calaamadahaada. Daaweyntaada waxa ay noqon karaa mid ka mid ah qodobadan. Dhakhtarkaagu waxa uu ku dhihi doonaa cab cabitaan 8 koob maalin walba ah. Ka fogow cabitaanada infekshinka ama cabitaanada fayaniistu ku badan tahay sida qaxwada, shaaha iyo cabitaanada fudud. Dhakhtarkaagu waxa uu kuu qori doonaa antibiyootik qallajiye waana inaad sida loo baahan yahay dhakhtarkana kuugu qoray aad u qaadato. Haddii aad isku kala goyso waxaa dhici karto inuu xanuunkii kugu sii raago ama uu kaaga daro. Siyaabahee looga hortagi karaa? Ka nadiifi cawradaada qoyaan wasakh keeni karo. Kaadi haysta faaruji dhowr saacadood kadib inta aadan seexanin ama mar waliba oo aad dareento in kaadi haysta ay ku buuxdo. Haweenku waa in ay mar waliba cawradooda dhaqaan galmada ka hor iyo kadibba. Xiro nigis nadiif ah ama surwaal dabacsan. Ka fogow alcohol-ha iyo cuntooyinka fudud cabitaanadana ka mid yihiin. Waa Somali News oo kuu soo gudbinayay infekshinka ku dhaca kaadi mareenka iyo siyaabaha aad ku xallin karto. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaalaa wabarakaatuh. Haddii aad halkan soo gaartay waad ku mahadsantahay daawashadaada. Subscribe inoo saar, like inoo saar si aan u ogaano inaad soo gaartay halkan. Mahadsanid.